السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaad saaxiibada qiimaha qadarta mudan ku xiran janaalka walaalaha family oo markale muuqaal hor leh oo idinkaga diyaarino musalsalka walaalaha maxaa ka cusub sidoo kale maxaa ku soo kordhay. Waa tahay daawad hadii aad markii koowaad soo booqatay janaalkan walaalaha family subscribe noo sar sidoo kale muuqaalkan like noo saar waa mahadsantiinta ka bacdi ee soo dhawow. Hanidin bilaabay xalqadii u dambeysay ee 63aad xooga yar hoos dhacay ku yimid inkastoo hoos dhac lagu tilmaami karin haddana wax yar oo hoos dhacay ku yimid taas macnaheedu waxay tahay xalqadii u dambeysay xalqadii ku sii horeysay ba daawashadeedu isku mid ayuu ahaa hoos dhac yar ayaa yimid kor kacna ma aysan sameyn xalqada sidoo kale musalsalka walaalaha kaliya ka hoos dhac muusan ku imanin ee dhammaan musalsalada Turkiga iyo hoos dhac ku yimaaday sidoo kale waxa hoos dhac ku yimaaday musalsalkiis habeenkaas la daawanayay ee Gonul Day habeenka sabtida la wada daawanayay asaga musalsalka walaalahaba marka musalsalka Gonul Day asaga hoos dhac aad u weyn ayaa ku yimid asaga kaalinta koowaad oo laga qaaday waxaana kaalinta koowaad soo istaagay musalsalka yaali jabkina telefishinka Star TV muuqaalka dhamaadkiisa ayaan kaalmaha sheegi doonaa ayaan ka horeyno macluumaadada iyo waxa ka cusub musalsalka walaalaha waa tahay sawad ognahay maalmadeedu waxaan ku mashquulsanayn gabadh ayaan ku mashquulsanayn taas gabadh cusub oo lagu soo dari doono musalsalka walaalaha oo magaceedu uu noqon doono Gulay magaceeda saxdana uu yahay Ozge Actinis isla markaana Asiya la saaxiibi doonta gabadhaas hadaba waxaan ku mashquulsanayn dadka ay kala dhaxgali doonto iyo sidoo kale qofka isticmaalayaan hadaba maanta ay akhbaartaasi si rasmi ah loo soo baahiyay waxaana la rajeynayaa gabadhaasi marka ay timaado in ay qofkana hadda idin sheegayno ay wada socon doonaan gacmahana is qabsan doonaan hadaba qofkaasi qof kale ma aha ay wada socon doonaan ee waa Tolga ay wada socon doonaan saamid ognahay Tolga hadda koor waxa ka tagtay Jamila ayaa ka tagtay maalmahana wuxuu ku badaa ay bike ayuu ku badnaa marka lama ogolo ay bike in ay wada saaxiibaan maadaama ay bike iyo beerka ay aad u fanis badan yihiin marka Tolga iyo ay bike hadii la isku daro ama ay saaxiib wada noqdaan waxa laga yaabaa fanis inay heli waayaan marka ay bike iyo sidoo kale beerkii waqti ay heshiiyaanba mar uun bay heshiin doonaan Tolgana gabadhaasi Gulay ah ay wada socon doonaan kulay si isku baran doonaan iyo waxa kala dhaxmari doona lama sheegin gabadha marka ay timaado ayaan ka warsugeynaa intaasi hadii aan kaga nimaano gabadha cusub macluumaadkeeda ninka Cumar halkuu ku dambeeyay gooska maxaan ku aragnayse hadaba ninka Cumar Samad ognahay badhiig ayaa maskaxda kaga furmay sidoo walaalkana Muuse noo soo sheegayba sidaan gooska ku soo aragnay badhiig ayaa maskaxda kaga furmay xaaladiisu sidee ayay noqon doontaa ugu horeyntii Cumar xalqada soo socota isbitaalka ayaa la geyn doonaa isbitaalka marka la geeyana sidii aan gooska ku soo aragnay doctorka waxa uu dhihi doonaa yarkan waxaan oga shakisanahay in maskaxda uu dhiig kaga furmay inkastoo aan la hubin maskaxdaasi dhiiga inuu kaga furmay kale lama hubo laakiin saana waan isku ognahay xanuunkaasina wareer yar oo ku imaaday ayuu ahaa iyo jug yar oo madaxa ka soo gaadhay iyo sidoo kale feedhaha waa tahay gabadhii Asiya ahayd yarkii dooruka waxay ku tiri markuu Dooruku weydiiyay qofka Cumar sidaan u galay Asiya Dooruku waxay ku tiri qofka sidaan u galay waa Sarbi Doorukuna Asiya ka warsugin isla markiiba intuu baxay ayuu raadiyay ninkii Sarbi ahaa wax yar kadibna wuxuu ogaaday Sarbi inuusan halkan joogin oo uu aaday dabcan dhankaas iyo xaafadooda marka tan isweydiinta mudan ee hadal hayntana leh ayaa waxay tahay Asiya ma waxay u maleynaysaa Sarbi markii uu Cumar garaacayay ama inuu Sarbi mar labaad garaacay Cumar oo Sarbi uu waqti xaadirkan uu Cumar garaacay oo Asiya kaliya may ka shakisan tahay mise waxay sheegaysaa oo Dooruk u sheegaysaa Sarbi dhibaatadii hore Cumar u geystay ama maalintii Emir gaariga uu jiirayay maalintaas Sarbi maadaama Cumar garaacay ma taas ayay sheegaysaa runtii waa ta ilaa iyo waqti xaadirkan la fahmi la yahay mise naxdinta ayaa ka keento Asiya si degdeg ah ay Dooruk ugu tiri qofka Cumar saan u geystay waa Sarbi hadaba Dooruk asagana muxuu ku fikiray Dooruk dadka badi waxay leeyihiin isla markiiba Dooruk waxa uu ku fikiray in Sarbi uu meelahan ka dhow yahay isla markaana Sarbi wax yar ka hor uu Cumar dilay Cumar sidan isbitaalka loo keenay Doorukna suu ordayay Sarbi ayuu raadiyay kulay dhanku qaladka waxa uu ka jiraa ama dhibaatada waxay ka taagan tahay gabadha Asiya shakigeeda ama say wax u maleynayso waatan ilaa hadda aan garan la'nahay say ayadu wax u fahantay ani ahaantayda waxaan u maleynayay in Asiya u fahantay markii loo yeeray lagu dhaw Cumar ee dhakhtarka yaala in Sarbi uu mar kale garaacay Cumar sidaasna ay u tiri Sarbi ayaa garaacay Cumar
haddana dee lama dhihi karo boqolkiiba boqol saas ay u fikraysaayo oo cumar waa u sheega ayaa ahayd dhaawacyo yaroo soo gaadhay inuu Sarbi u geysta habeenkii u dambeeyey weliba tana markii email gaadhiga la jiirsiinayay. waa tahay intaa haddii aan kaga nimaano cumar saan ognahayba intuusan suuxin ka hor wuxuu arkay gacantii u xiraa ninka lagu magacaabo Sarbi, isla markaana halkaas waxa uu ku ogaaday Sarbi in uu yahay qofka gaadhiga jiirsiyey gabadha Emaila. maxaa kala dhexmari doona labadooda, sideese ayay ku wada macaamili doonaan? waa tahay kulli cumar markuu soo kaco xalqada soo socota gooskooska labaad ayaan ku horsugaynaa, inkastoo toddobaadkii u dambeeyey wax gooskoos labaada uusan jirin kulli cilad xaggooga awaaye, laakiin toddobaadkan gooskooska labaad wuu jira insha Allah. gooskooska labaad ayaan ku horsugaynaa bal cumar xaaladiisu halka ay ku sugnaatay inuu degdeg u soo kaco oo xalqada soo socoto uu shaqayn karo waxyaalo uu samayn karo. gooskooska labaad ayaan ku horsugaynaa, balse cumar muxuu samayn doonaa marka uu suuxdintaasi ama dhakhtarkaasi ka soo baxo? muxuu ku samayn doonaa nin yarkan lagu magacaabo Sarbi? muu dacweyn doonaa? ugu horreyntii isla gooskooska dhexdiisa gabadhii Asiye ahayd waxay sheegtay inay Sarbi ka argudanayso. ayadana runtii maxay ogaatay? ma waxay ogaatay qofka gaadhiga Email jiirsiyey inuu Sarbi yahay? ma cumar ayaa u sheegay markuu isbitaalka ku jiray? sidoo kale waxaa la sheegay in Asiye ay dacweyn doonto Sarbi, isla markaana ninkii Axmed Ilmaas uu la hadli doono Asiye oo uu u hanjabayo. kolley waxa ugu hanjabi doono lama sheegi karo ama sheegi karan ahaantayda. sidoo kale dacwadaasi way ka laaban doontaa oo ma dacweyn doonto yarkan lagu magacaabo Sarbi. haddaba arrin kale waxaa jirta muhiima, dharbaaxashadii Axmed Ilmaas soo gaadhay isla gooskooska dhexdiisa. Axmed Ilmaas hooyadiisa Seefkii waxa uu ku dhahay, hooyo aniga cumar in aan dhali waaba ka qoomamaynaya oo waan ka shalaynaya ayuu dhahay. in aan dhalay qalad xagee ka yimid ayuu ahaa. sidoo kale gabadhii Ayla ahayd waxay u sheegtay islaantii Shiwaal ahayd in cumar uu ku dhashay sharci darro. cumar marka uu maqlo arrimahaasi oo dhan iyo xanta baryahan ka jirta xaafadahooda muxuu samayn doonaa? sidoo kale ma laga yaabaa in uu qalbi jabo, mase laga yaabaa cadaawadda ka dhaxaysa Axmed Ilmaas in ay sii weynaato? muuqaalka nooma saamaxayo waxyaalahaas oo dhan inaan fasiro. waxaan rajaynayaa muuqaalada xiga sida ugu dhaqsiyaha badan in aan u soo dhigo maadaama maalmihii u dambeysay aan mashquulay. waana idin sheegay cilada jirtay iyo dacwadana lagu soo qaaday. waa tahay intaa bal haddii aan kaga nimaano musalsalka walaalaha bal dhanka kaalmaha handadajino. kaalinta koowaad waxaa ku jira Yaali Taabkiini oo markaan laga yaaban yahay qaabka uu ordaya daawashadiisu sida tahay. sidoo kale xalqadiisa u dambeysay ee afraad ayaan filayaa saddexaad ayay ahayd maalintii koobaad ee YouTube-ka ku dhawaad 5 milyan oo daawadayaal ay soo xariisay, ayadoo 20 saac iyo dhowr saac yaala ay 5 milyan oo views soo xariisay. sidoo kale kaalinta labaad waxaa ku jira Goonuul Day, kaalinta saddexaad waxaa ku jira Kulul Sosmaan, kaalinta afraad waxaa ku jira Musalsalka Walaalaha, kaalinta shanaad waxaa ku jira Abaabul, kaalinta lixaad waxaa ku jira Taxanii ATV ee Bamboo Jahane, kaalinta tobaad waxaa ku jira Cadaaladda, kaalinta sideed waxaa ku jira Saddexda Gabdho ee Walaalo, kaalinta sagaalaad waxaa ku jira musalsal lagu magacaabo Khiyaano ama Aldatmaak oo telefishinka ATV laga daawado, halka kaalinta tobnaadna uu ku jiro Alab Arsalan. waa tahay daawada intaasi waxaan kusoo afmeeraynaa muuqaalkeeni aan maanta ugu talagalay musalsalka Walaalihi iyo musalsalaadka Turkiga wixii ka cusub ee la soco muuqaalada xiga. sidoo kale muuqaalka like noo saar. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.